السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله تمركو إلهي أبو ري عرشي كدهارن كونكا كرسيغا لوح المحفوظ خالنكا ملائكة إبليس عركا يا دولكا ضيحي أدعيدا ضيحي أدعيدا كسو شيغن إن لو تلقل إن لو حساب سدو وقتيانتا دنيدا كدب إلهي وحو وشيغ ملائكة إنو أبو ري قفك وغري دادكا ملائكة وحي كعبسد إنو نقض مخلوقات كاسميد فسادية دولكا بلس إلهي أو شيغ إنو أجيا بحسن أوجين إلهي وحو كأبو ري قفكاسي carada noocyada kala duwan kadib wuxuu ku daray caradaasi biyo kadib waxay noqotay dhoobo dhegdheg ah madoobaatay adkaatay isbedeshay oo dhawaaq leh kadib wuxuu ugu tagay jannada muddadii jannada ku jiray waxaa joogay jannada ibliis wuxuu ku dawaafay makhluuqaasi dhoobada ka samaysan wuxuu arkay inuu yahay dhoobo duleesho wuxuu iska dhaadhiciyay inuu yahay makhluuq aan isaysan karin muddo kadib ayaa ilaahay ka dhigay dhoobadaasi jir qurxoon oo xibnihiisu u dhammaystiran yahay uu dhirirkiisuna yahay 60 dhudhun kadib ilaahay wuxuu ku afuufay ruuxda aysan jirin cid garanaysa ilaahay mooye wuxuu ilaahay ku abuuray nabi aadam jir weynaan dhirirkiisu yahay 60 dhudhun balse kuma abuurin cilmiga wuxuu baray markuu ruuxdu ka afuufay kadib sida magacyada adkaarta cibaadada habnololeedka markuu cilmiga baray kadib ayuu wuxuu u sameeyay bandhig cilmiyeed ee ka soo qayb galay malaa'ikta iyo ibliis ilaahay wuxuu weydiiyay malaa'ikta ibliis in ay sheegaan magacyo balse way ka cudur daarteen waxayna dhaheen ilaahay ma garanayno waxaadan barin kadib ilaahay wuxuu amray nabi aadam inuu sheego magacyada markuu sheegay kadib magacyadii ayuu ilaahay ku yiri malaa'iktii ibliis soo idima sheegin waxaadan ogin inaan ogahay kadib ilaahay wuxuu faray malaa'ikta inay u sujuudaan nabi aadam si salaan ah sidii nabi aadam loo amray inuu salaamo malaa'ikta markii la abuuray nabi aadam malaa'iktii dhammaantoodba sujuudeen balse ibliis oo arkay abuurista nabi aadam ayaa wuxuu qalbigiisa ka guuxayay makhluuqan uu arkay inuu dhoobo duleesho ahaa markuu jannada ku soo arkay ayuu iskala weynaaday inuu sujuudo ilaahay ayaa weydiiyey asigoo og ibliis sababta ku kaliftay inuu diido amarka ibliis wuxuu sheegtay in qofka hortaagan oo la amray inuu sujuudo inuu yahay makhluuq laga abuuray dhoobo doorsoontay balse asagana laga abuuray naar holciisa kadib ilaahay ayaa ka fogeeyey naxariista waxaana laga soo bixiyey jannada taasina waxay kordhisay cadaawad dheeraad u qaado aadam ibliis intaas kuma harin wuxuu ilaahay ka codsaday inuu sii noolaado ilaa qiyaamaha laga gaaro tiidan waa loo ogolaaday wuxuu go'aan ku gaaray inuu aadam iyo carruurtiisa fasahaadiyo kadib ilaahay ayaa abuuray xaawo xaaska aadam si ay ku wada noolaadaan jannada waxaana la faray inay wax kastoo jannada ku jira ay cunaan hal geed mooye waxaana loo sheegay in ibliis uu col u yahay aadam iyo xaawo ibliis halkaas ayuu shaqo fursad ka helay geedkaasi ayuu damcay inuu ku baadiyeeyo aadam iyo xaawo geedkii ayuu magac qurxoon u sameeyey dhan kasta uu ka soo galay geedkii wuxuu yidhi geedkan waa geedkii waaritaanka iyo boqortooyada sidaas darteed laydinkaga reebay inaad u dhowaataan wuxuuna ugu dhaartay inuu yahay daacad oo dantooda ka talinayo aadam iyo xaawo way aqbaleen markii dhadhamiyeenna waxaa ka fiidmay daboolkii ilaahay u daboolay cawradooda ayaa bannaanka soo baxday waxay u kala carareen waraqyada jannada markay isku dabooleen warqadaha jannada ayaa ilaahay u dhawaaqay oo ku yidhi soo idima sheegin inuu ibliis diin yahay col markaas ayay ogaadeen aadam iyo xaawo inay ku dhaceen dabintii ibliis waxayna ka qawmeeyeen dembigii waxayna qirteen inay dembigii ku dhaceen aadam iyo xaawo jannada ayaa laga soo bixiyey aadam iyo xaawo iyo ibliis dhammaantoodaba waxaa laga soo dejiyey samada 7 waxaa la faray inay u degaan dhulka oo laga abuuray aadam oo lagu celinayo lagala soo saarayo ubadkiisa qiyaamaha aadam iyo xaawo waxay ahaayeen qoyskii ugu horeeyay oo soo degta dhulka qoyska horeeyay muusan jirin meeshay ku soo degeen waa meel ka tirsan qaaradda Aasiya inkastoo jannada iyo baytul macmuur oo ku yaala samada 7 korkeeda baytul macmuur oo hoos kaga beegan kacbada ku taala dhulka balse waxaa la sheegay ubadkii nabi aadam ka faracmeen inay ku badnaayeen agagaarka dhulka Ciraaq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi